ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Adduunku wuxuu u dabaaldegayaa 13 Agoosto ee sanad kasta maalinta caalamiga ah ee gacanta bidix. Waana dadka doorbida in ay adeegsadaan gacantooda bidix halkii ay adeegsan lahaayeen gacantooda midigta ah. Waana koox yar oo dad ah oo matalaya 10% dadka adduunka. Marka laga soo tago aragtida gacanta bidix oo ah astaan sheedaan, qoraalo badan oo diini ah ayaa lagu xusay diinta Yuhuudiga, Masiixiga iyo Islaamka. Islaamkuna wuxuu ku boorinayaa isticmaalka gacanta midig maxaa yeelay way barakeysan tahay. Wuxuuna mamnuucayaa adeegsiga gacanta bidix maadaama ay astaan u tahay sheedaanka. Maalinta qiyaamana mu'miniintu waxay ka galayaan jannada dhanka midig, gaaladuna waxay naarta ka galayaan dhanka bidix. Intii u dhaxaysay qarniyadii 15aad iyo 16aadba, Isbaanishka iyo Yurub waxay goobjoog u ahaayeen ololo xarig iyo jirdil ka dhan kuwa oo ku xadgudbay kaniisadda Kaatalooniga ah. Xukunkaasina wuxuu ku tiirsanaa adeegsiga gacanta bidixda. Dad badan oo waxba galabsan ayaa lagu jirdilay baaritaanka Isbaanishka adeegsiga gacanta bidix awgii, iyo maxkamadeyntii saaxiradii lagu gubay tuulo ku taalay Mareykanka sanadkii 1692. Mary Barker. Keemaha Afrikana waxaa jira qabaa'il Afrikaan ah oo aaminsan in bidixdu ay la xiriirto shar. Qofkii isticmaalana gacanta bidix laga gubayo ilaa ay gacantiisii ay dareemaheedii dhimanayaan. Marka laga hadlayo qabaa'ilka dega qarka webiga Niger, haweenku waxaa lagu qasbaa in ay cuntada ku diyaariyaan gacantooda midig. Haddii ay dhacdo in haweeney la ogaado inay gacanteeda bidix ku karisay, ninkeeda ayaa ka eryayo guriga iyadoo laga aaminayo in ay dili rabtay ninka. Dhanka Jamhuuriyadda Ghana, haddii aad gacanta bidix ku tilmaamto caay weyn ayaa arrintaasi loo arkaa. Marka laga hadlayo qabaa'ilka Mora oo ah dadka asliga ah ee ka soo jeeda New Zealand, waxa ay aaminsan yihiin in dhinaca midig ee jirka uu astaan u yahay nolosha halka dhanka bidixna yahay geeri. Dadka bidixda ah waxaa lagu sameeyaa takoor iyo faquuq. Waxaa xaaladda ugu sii daray waa aragtida khabiirada cilmu nafsiga. Tani waxay ku kaliftay in macallimiinta iskuulku ardaygooda ay ku ciqaabaan isticmaalka gacanta bidix maadaama ay astaan u tahay sheedaanka.